inta la xaqiijiyay 3 ruux oo xoolo dhaqato ah ayaa ku geeriyootay kadib markii ciidamada AMISOM ay ku risaaseeyeen tuulada Qurac Madoobe oo hoos timaada degmada Mahaday ee gobolka Shabeellaha Dhexe waxaana wararka qaar ay sheegayaan inay gubteen guriyihii ay deganaayeen dadka xoolo dhaqatada ah kuwa oo ka sameysnaa aqal Soomaaliga ka hor inta aysan risaaseen ciidamada AMISOM dadka xoolo dhaqatada ah ayaa waxa uu dagaal muddo socday duleedka Qurac Madoobe oo ku dhexmaray al-shabaab iyo ciidamada AMISOM lamana oga qasaaraha ka dhashay dagaalka AMISOM iyo al-shabaab dhexmaray xildhibaan Maxamed Bashiir Qaasim Daqare oo kamid ah xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa ugu baaqay dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo dowladda federaalka ah in baaritaan lagu sameeyo dilka dadka rayidka ah meeshaas waxa ka jira ka dhacay dhibaato meeshan waa meel ay degan yihiin dad xoolo oo u soo raadsaday daaqsin yar oo ka jira meesha balse waxaan leenahay shacabka iyo shabaabku ismalaha waa kala duwan yihiin hawsha ay qabanaysa AMISOM waa mid la og yahay oo ugu mahadcelinayna balse waxaan ku eedeynaynaa waxyeelada shacabka soo gaartay 3 ruux ayaa dhimatay hanti ayaa burburtay guryo ayaa la burburiyay dadkii abaaraha meeshaas yaranaqa yimid ee barakacay ilmo yar iyo haween ayaa barakacay marka arintaasna waa ku eedeynaynaa dibkana waxa keenay sababtaas dagaalka ayaa keenay waxaan leenahay marka xukuumadda federaalka iyo maamul goboleedka Hirshabeelle madaxdeeda arintaas inay baaritaan iyo aragti gaar ah ka qaataan fiiriyaan eegaan waxyeelada shacabka soo gaaray kulli xogti waa socotaa burburintu dagaal markuu dhaco taangiyadii iyo baabuurtii beebaha iyo dagaalkii ayaa cagta lagu mariyay ilaa 17 guri ayaan hadda soo gaarayso xaqiiqadii 3 dhimashaan oo soo gaaraysa wixii kalena kulli maamulka degmada ayaa noogu wakiila xogtayna soo siinay shacabku sidaas ay sheegaysaa saaka xaaladu way degan tahay dadkii dhintay ayaa la aasayaa tiraayo intaas ayaa ka taagan laakiin sida kale nabadgelyo ahaan way degan tahay gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda degmada Mahaday Cabdulle Xuseen Shacleeye ayaa sheegay dadka la dilay qaar ka mid ah in iyagoo nool guryahooda AMISOM ay kala baxday kadibna la toogtay dad degan oo xilligan sida la ogyahay geeska Afrika abaaraha ka jira Soomaaliya ka jirta dad abaar ku hayso oo xoolaaleey oo beeraley oo beerahoori jooga dadkina waa la dilay ilaa 3 qof ayaan sidaan hadda ognahay ku dhimatay oo kala xanuun badan waxa ay kala xanuun badan yihiin nin nimanka kamid ah waxa ku dhacay xabadii dhacayay mid kale gurigiisa loogu toogay xabad lagu dhiftay midka saddexaad soo noolaa la qabtay markii la qabtay AMISOM baabuur ay soo saaratay 3 kiiloomitir kadib markay socdaan ayay gacnaha ay ka xireen ayay toogteen 3 xabadood madaxa uga dhifteen arintaas marka waa ka dhiidhinaynaa haddaan nahay shacabka iyo maamulka madaxda naga sareysana waa ka hadla doontaa intaas ayaa ka dhacay 9 bisha degmada Mahaday intaan ognahay guriyihii ay ku jiraan dadka xoolada waa la yaqaanaa markay dadka guurtay yihiin waxa ay dhistaan oo sida aqalaha la kala iyo xashashka ay galaan waa dardareema gaadiidka waaweyn ay wataan AMISOM waa dardarsiiyeen Ismaaciil Cabdulle Sabriye Universal TV Jawhar